ninbaa bixijana raxma Allah siiye hadda xijaabtay oo marka rag uu la kaftamay wuxuu yiri aray wuxuu isticmaalay kaliya buluq aran dofar marka de rag ilmaadeero iska wada kaftamaya marka wali waraadeer dofarka wax noogu bedel markaas yiri aranjan halkaas aray ka soo baxay bismillaahir rahmaanir rahiim daawadayaal waxaanu sameynaynaa wareysi gaar ah oo ku saabsan xaaladda Puntland nidaamka doorashooyinka ee ku saabsan qof iyo cod iyo marxaladda lagu jiro sidoo kale arinta abaaraha ayaynu ka hadli doonaa waxa marti inoo ah oo aan ku faraxsanahay maanta inaan wareysigan gaarka ka qaadno injineer Maxamed Cabdullaahi Shoortaaye oo kamid ahaa musharaxiintii Puntland ee 2019 doorashada madaxtinimada galay haatanna xubinka ururada siyaasadda ee Puntland injineer Shoortaaye ku soo dhawow daljir wareysigan gaarka ah marka hore waxaan rabnaa inaan ku bilowno Puntland waa ogtahay xaalad abaaraha ka jirta roobkiina waa daahay waxaana laga baqsan yahay hadda in macluul marxalad loo gudbo arintaas sidee kula tahay dadaalka dawladda oo madaxweynuhu ilaa 1 milyan uu yiri waa ku deeqnay biyo dhaamin hadda la bilaabay sidee dadku isu kaashan karaan marka la fiiriyo xaaladda abaarta marka arintaas aan ku bilowno Zakariya aad baan kuugu mahadcelinayaa adiga iyo bahda daljir waan idin salaamaya waxaan kaloo halka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan reer Puntland salaan gaar ah ayaan u diraya xaqiiq weeye xaalad runtii culays ah baan u wajahaynaa waxa aan u baahanahay oo kali ahna waxa weeye deeqda Rabbi subhanahu wa ta'ala isaga gacan weyn isaga deeqdiisa nagu filan tahay waxa aan u tabeeno deeq makhluuq uu naga haystay ama uu naga haysto hadeer uu nasiin karana ma aha wax makhluuq gacan ku hayana naguma filla iyo wax makhluuq gacantiisa ku jira khaliqa ayaanu uga baahanahay ilaahi waxaan umadayda Rabbi subhanahu wa ta'ala aan u weydiinaya ilaahi inuu deeqiisa nasiiyo ilaahi inuu noo soo gurmado cirka inuu Rabbi noo salaaxo subhanahu wa ta'ala oo uu noo gudliyo isaga ayaa gudlin kara roobkana isaga xukuma oo maamula deeqdiisa kamid tahay in xariistiisa iyo fadaaishiisa ilaahay inuu nagu manaysto subhanahu wa ta'ala duruufaha adag baan wajahna dadkayga waxaan kula talin lahaa Rabbi in gacanta loo taago abaaruhu iskama yimaadaan abaaruhu waxay ku yimaadaan iyo culeysyaduba haday amni dhaqaale magaraysa nusqaanta insaanka lagu imtixaamo bay kamid yihiin waxay ku yimaadaan isyaanka marka insaanka in lagu xasuusiyo inay gafayaan inay jeesteen oo Allah ay dhabarka u jeediyeen inay Rabbi u soo jeestaan subhanahu wa ta'ala oo gacanta ay u taagaan baan dadkayga xasuusinaya inaanu iska joojino oo aanu bataatanba hambrega u jeedno dunubta iyo waxyaabaha aanu ku jirno oo keeni kara carada Rabbi baan dadkayga kula talinaya insha Allah ilaahayna aanu barino Rabbi aanu noqon subhanahu wa ta'ala dawladana waxaan leeyahay dadka loo gurmado mudnaan hala siiyo waa wax waqti temporary oo ku meel gaara waa laga gudbaya insha Allah ta'ala ilaahayna wayna ka saaraya si degdega ina kaba xanimi karaan waxyaabo badan oo shaqooyin oo qabsan lahayn oo ku hagaajin lahayn waxaba laga yaabaa mararka qaar kood waxyaabo badan oo ina ka khaldan oo xagga siyaasadda iyo maamulka iyo cadaaladda iyo nidaamka dawliga ina kaga khaldan in abaaruhu ay keenaan baa suuragal marka kuwana hal hagaajiyo hana loo gurmado abaaraha oo loo sameeyo waliba si joogto ah hay'ado waaba leenahay hay'adaha hal xoojiyo hal qoweeyo insha Allah ta'ala waad mahadsantahay mudane Shoortaaye waxaanu la soconaa Puntland waxa laga bilaabay nidaamka ururada badan ee dadku ay toos codkooda u dhiibanayaan saddex degmo lagu bilaabay Eyl Ufayn iyo Qardho labadii degmo oo kale waa ay isdoorteen golayaashina waa la fariisiyay laakiin degmada Eyl oo gobolka Nugaal ka tirsan wali ma aragtay laguma guuleysan in golihii deegaan ee soo baxay la fariisiyo ururka aad ka tirsan tahayna ama aad xubinta ka tahayna ururadii Eyl doorashadeeda galay buu qayb ka ahaa maxay tahay waxa aad nooga sheegi kartay waxa hortaagan in golihii deegaan ee soo baxay ee Eyl la fariisiyo oo is doortaan waa maasantahay Zakariya waa su'aal qayima horta doorashooyinkii isdoorashadii dhacday qof iyo codka ahayd ee saddexda degmo tijaabada loogu qaatay hordhacna ahayd tijaabana waa hordhacna waa ahayd labadaba sababtoo qayb bay ka tahay doorashada ballaaran ee dhici doonta hadii Allah idmo degmooyinka idila guul bay ahayd waxyaabo badan oo guul ah bay noo muujisay waxay noo muujisay dadka sidoo u heelan yahay waxay noo muujisay dawladdu haday daacad ka noqon karto ma garanaysay sida wax u dhici karaan oo hagaagsan
وهذه داعد لغا نقون كرو waxay noo muujisay sida aanu ilaa xad isugu filaan karo oo ma garanaysaa waxay noo muujisay natiijadii ka soo baxday kalsoonida shacabku sida ay tahay iyadoo ay soo baxeen dad wada dhashay kuwa isqaba dad ma garanaysaa Soomaaliyeed oo not necessarily in deegaanada Puntland aan ka soo jeedin hadii la doono asal laakiin hadda degan oo muwaadiniin Soomaaliyeed hadda rabo noqday ama noqonaya muwaadiniin reer Puntland again macnaheedu ma aha inaan kala saarayo dadka Soomaaliyeed ama Puntland iyo dadka inaan kala magac laakiin waxaan ka hadlayaa Soomaalidu sida ay isu kala ardaayayso in dadkaas ay ku soo baxeen oo waagi hore aan degmada ku soo geli jirin golayaasha deegaanka oo haddana lagu qanacsan yahay murtaax dadku uu ku yahay marka guulo badan bay taasi muujisay saasoo ay tahay waa ay daaheen natiijooyinku inay soo baxaan hore u soo baxaan la fuliyo natiijooyinkii soo baxay ilaa hadda degma rahman nasiib wanaag labada degmo oo kale oo Ufayn iyo Qardho waa ay fulaan iyagu konsulkii waa la fariisiyay waana shaqeynayaan dadkoodina kalsooni bay ku qabaan ayl waa rahman tahay daahidaas iyo rahmanaanta laftigeeda qayb waxa ka ahaa madaxweynaha Saciid Cabdullaahi Dani oo runtii isagu ahaa kaligiduul lone wolf aad iyo aad mashruuca kan runtii kuna amaana oo lagu amaanay ma garanaysaa legacy inuu ka tago isaguna legend kuna noqon doona hadii uu fuliyo markaana ku ahaayo libinteeda qaatay ayaa mashquulay wuxuu ku mashquulay marka waxa reer Puntland dan u ahayn isagana aan markaas dan u ahayn siyaasadda ugu yaraan qaab curdinimo ah oo aan laga fiirsan uga mashquulay waxayna ahayd ka qaybgalkii doorashadii ma garanaysaayay ka dhacaysay xagga wixii la rabay inay ahaato doorasho sax ah oo federaalka lagu doorto taa micnaheedu ma inaan u diidanahay madaxweynaha shakhsi ahaan oo waa shakhsi Soomaaliyeed waa muwaadin reer Puntland waa muwaadin Soomaaliya xaq buu lahaa laakiin xil kale uu noo hayay hawl kale oo ka muhiimsan buu hawsha uu ka mashquulay buu noo hayay hawshii marka way ribatay oo way hakatay inay hakatana nasiib darro ay ahayd wax Soomaali oo dhan faa'iido u aabay ahayd wax ka muhiimsan xilka federaalka uu ka qaban lahaa iyo hadduu xataa madaxweynuhu ku guuleysan lahaa aad uga muhiimsan bay ahayd sababta marka hadda maanta ay ayl u taagan tahay waxa weeye waa xisbigiisii ka laftigiisii u xanibanta حسابتي كله قاب كله وكله قولي سواء صدق طبعا كهبالة أفري طبعا بيكون يسنكرين إن يو سي معركتي كل جود أيدي سنكرين حبين بيوجا باي حبني كله وحايستا أنتي كله أنتوا معارض كهاي لا يسكون مرة عسنا هذا نمر كله وين قسمتي وكهد حدي دماغ قسمتي وحيابك كله بدن بعد سكوا قسمي مرك أنت بدن سببته أيو فريدا وسبب كنت حلق ذا إن عند الكيلو بهنا اللي ما سنتاي مرنبا مدن شرطاي إن doorashadii ayl ka dhacday xubnihii golaha deegaan ay soo baxay ay u xanibay yihiin arrimo la xiriira beelaysi ururada qaybtoodna ay qayb ka yihiin mushkiladda oo ay leeyihiin haddaanan annagu noqonaynin gudoomiyaha soo baxay ee degmada ayl goluhu ma fariisan karaan maxay tahay waxa rasmiga ah oo aan dadka lala wadaagin oo doorashada ayl hortaagan bal arrintaas maadaama aad ururka aad xubinta ka tahay oo doorashadii ayl galay deegaankina aad ka soo jeedid نصيب درة دورشدنا أي لهيد وحوية أرد نصيب كأي لهيد وحوية سعيد عبد الله الدني ودستان مركب رب الشيعي يسوي كجونيد أو كل جدولة إن ضد بدنا وده لوضع وأنا جو بعن كم إذا هاي الله دعسن ودون يضد كانوا إنه يصدرتان وما حدا إلا صباحا إجران وجرب تاجيهن لكن نصيب درة وح سياسة دي حكومة ده هذا يسوي وما ده حكاية هاي حين داب كده وجوده إن خطرت أقوين إدارة شرطة كويهن iyadoo ay u wacantahay in arda ahaan dad xogaa dhabar salaax iyo dhabar xoqashada qaabkii hore oo runtii cudurka ku ahaa horsocodka maamul hufan oo Puntland ay yeelato iyo dawladnimo hagaagsan ay ku doonayaan in qaab noocaas ay iyaga laftoodu wax ku helaan oo wax tare loogu yeerayo aan hadda la garanayn cid jidaysay iyo sida uu yahay oo runtii taraha laftigiisu iyo hadalhayntiisuba ay Puntland iyada laftigeedu cudurrada hayaba ay ka mid yihiin dawladnimadeeda iyo horsocodnimadeeda iyo wada lahaansheeda ayaa khatarta ugu weyn ku ah nidaamkaasi inuu shaqeeyo ama uu ka islaaxo Puntland waana dhab in loo tirinayo tusaale madaxweynihii hore oo isaguba dimuqraadiyiinta iyo nidaamka uba holaday oo inkastoo nidaamku uu ahaa nidaam
la yiri ha laga guuro termkii u horeeyay Puntland la dhisay saddexdaas sano marka ay dhamaato loogu talagalay in la qaato wadada cagta la saaro isdoorashada laakiin waxa markii u horeysay soo hadal qaaday oo miiska soo saaray Dr. Cabdiraxmaan Faroole markii dambe hadeer ayl iyo hadeer xilligan la joogaba nasiib daro isaga farta lagu fiiqayaayo la leeyahay odow aylna isaga marka hore ma garanaysa caqabad ku noqday hadeerna hadalla xanaf leh oo maartay incendiary remarks hadallo xanaf leh oo ka soo baxay baa la leeyahay odow doorashadii isaga hortaagan ama ma garanaysa ma se qabo hadii Siciid ay ka go'an tahay ururada siyaasadda ee kalena ay ogol yihiin annagoo dhan aan ogol lahay in arrimahaasi ay cid is hortaagi karto ama la is hortaagi karto ama ha noqoto Cabdiraxmaan ama ha noqoto cid kale inner circle-ka groupka aan leenahay oo khatarta aan u malaynayno inay ku yihiin nidaamkaas doorashada ee Puntland ka hana qaadi doona marka waa dhab waajida waliba reer nugaaleedkaasi gaar ah waxa loo maadaama meesha nugaal ay ku taal haddana reer nugaaleedka xaqiisa wax ka khariban yihiin oo xanta hadda suuqa taalna waxa weeye wax tare la yiraahdo iyo wax noocaas oo reer nugaaleedka u tirsanayo ayaa degmadaas waxa dhiban tahay oo waxayna waxa dhiban tahay nidaamka democratization-ka ama nidaamkan isdoorashada qof iyo codka oo reer Puntland ay madaxdooda dooranayaan ayay ka soo horjeedaan oo waxay rabaan qaabka hore dhabar xoqashada ah in ay wax ku salaxdaan ma santahay gudoomiyihii hore ee guddiga meelgaarka ah ee doorashooyinka Puntland oo daljir waramay markuu iscasilay kadib iyo markii uu iscasilayayna shir jireed uu qabtay wuxuu sheegay in kooxo dawladda qayb ka ah ay meelaha qaybtood guddiga fooda isku dareen oo aysan nidaamkan inuu socdo aysan raalli ka ahayn waliba si gaar ah ayl buu u carabaaday ma jirtaa in koox madaxweynaha ku hareeraysan oo dawladda qayb ka ah aysan dantooda u arag 2024 in ayl golaheedu is doortaan yaa caqabada ayl ka taagan qayb ka ah darada doorashadan ay lahayd waxa weeye horta nasiibka ay lahayd waxa weeye Siciid Cabdullaahi Deni oo sidaan markii hore sheegay isagu ay ka go'nayd oo kaliya duula dad badan oo la wada oo aniguba aan kamid ahay oo la dhacsan oo doonaya dadkan inay is doortaan oo madaxdu ay la soo baxaan ay jiraan oo garab taagan yihiin laakiin nasiib darro waxa siyaasadiisa iyo xukuumadda hadda isagu uu madaxda ka yahay xayndaabkeeda gudaha in khatarta ugu weyn ay doorashada ku yihiin iyadoo ay u wacan tahay in arda ahaan dad xogaa dhabar salaax iyo dhabar xoqashada qaabkii hore oo runtii cudurka ku ahaa horsocodka maamul hufan oo Puntland ay yeelato iyo dawladnimo hagaagsan ay ku doonayaan in qaab noocaas ay iyaga laftooda wax ku helaan oo wax tare loogu yeerayo aan hadda la garanayn cid jidaysay iyo sida uu yahay oo runtii taraha laftigiisu iyo hadalhayntiisuba ay Puntland iyada laftigeedu cudurrada hayaba ay ka mid yihiin dawladnimadeeda iyo horsocodnimadeeda iyo wada lahaansheeda ayaa khatarta ugu weyn ku ah nidaamkaasi inuu shaqeeyo ama uu ka islaaxo Puntland waana dhab in loo tirinayo tusaale madaxweynihii hore oo isaguba dimuqraadiyiinta iyo nidaamka uba holladay oo inkastoo nidaamku uu ahaa nidaam la yiri ha laga guuro termkii u horeeyay Puntland la dhisay saddexdaas sano marka ay dhamaato loogu talagalay in la qaato wadada cagta la saaro isdoorashada laakiin waxa markii u horeysay soo hadal qaaday oo miiska soo saaray Dr. Cabdiraxmaan Faroole markii dambe hadeer ayl iyo hadeer xilligan la joogaba nasiib daro isaga farta lagu fiiqayaayo la leeyahay odow aylna isaga marka hore ma garanaysa caqabad ku noqday hadeerna hadalla xanaf leh oo maartay incendiary remarks hadallo xanaf leh oo ka soo baxay baa la leeyahay odow doorashadii isaga hortaagan ama ma garanaysa ma se qabo hadii Siciid ay ka go'an tahay ururada siyaasadda ee kalena ay ogol yihiin annagoo dhan aan ogol lahay in arrimahaasi ay cid is hortaagi karto ama la is hortaagi karto ama ha noqoto Cabdiraxmaan ama ha noqoto cid kale inner circle-ka groupka aan leenahay oo khatarta aan u malaynayno inay ku yihiin
nidaamkaas doorashada ee Puntland ka hana qaadi doona marka waa dhab waajida waliba reer nugaaleedkaasi gaar ah waxa loo maadaama meesha nugaal ay ku taal haddana reer nugaaleedka xaggiisa wax ka khariban yihiin oo xanta hadda suuqa taalna waxa weeye wax tare la yiraahdo iyo wax noocaas oo nugaaleedku u tirsanayo ayaa degmadaas waxa dhiman tahay oo waxayna waxa dhiman tahay nidaamka democratization-ka ama nidaamkan isdoorashada qof iyo codka oo reer Puntland ay madaxdooda dooranayaan ayay ka soo horjeedaan oo waxay rabaan qaabka hore dhabar xoqashada ah in ay wax ku salaxdaan suurtagal ma tahay mudane maxamed cabdulaahi shurtaay inaad dadka sharaxaan kooban ka siisid ereyga aad doorka mar ku soo celisay oo ah inner circle-ka madaxweynaha ma koox waxaa jirta gudaha ku jirta kushiinka ku jirta oo aan ahayn dadkii reer Puntland doorteen reer Puntland madaxweyne Siciid Deni bay doorteen isaga yaqaanaan la xisaabtamaan xukuumaddu soo dhisay jirta kooxdan lagu celceliyo dad badan afka ku dhuftaan oo la yiraahdo xindaabka ku jirta haddana aad leedahay taraha soo socday tirsanayaan oo khatar bay ku yihiin in reer Puntland codkooda dhiibtaan qof iyo cod yihiin kooxdaas sumadee leeyihiin horta madaxweyne walba oo yimaada team baa la shaqeeya kalsoonidiisa haysta teamkaasi ama waxay noqdaan team bilah madaxweynaha hadday yihiin professionals technocrats dad daneeyayaal dhab ah oo ma garanaysaa bahasha duugeeda leh oo u diirnaxaya haddii sida marar badan dhacday group iska subaaca oo inay dadka filiis gareeyaan ama diirtaan u yimina dee wixii khariba madaxweynayaashuna waa u kala jilicsan yihiin hadba tiimamka ku xeeran oo wayna dhacdaa inta badan natiijo khaldan inay u soo saaraan marka dambe oo doorashooyinka madaxweynaha in lagu ciqaabo codka oo dabeedna laga tuuro waana sababta loo tirinayo in madax badan oo Puntland soo martay aanay dib ugu soo laaban waliba marka dambe iyagoo filitaankoodii si ka duwan ama si ayaan aad iyo aad u filayn oo very humiliating ah inay uga deegaan kursiga سعيد وأولية تيم نوع عاصة فلين حكتي محنتي مموجا شعب ربون تلانا وأوجيهن إن بدرنا ميديا هي ملها والسلسلة هذا الغداء والله هذا مركا إن وأنا أوجي العسية هاي أورنتي سعيد والفيلي إنه هجامية أرق أو ماركتي إنه هذا وين أوجلسان أنت أوجلسيان ووحى وحبضن بكخربية أو هذا إن سياسية النوع عنه كلنتها أو legacy سعيد 100 years to come بغلال سنة وصوص على السينكرة إن شرفت يوم قرني ساي إن ويلكيسي وهو يهي لقوا أماني كرمانت إني كل حيان جروب إن يسوي كحيران وكاليالا إنه سوى أوجلسان هذا مركا وي جستارنتها يدا على أي حال وحال يرهدا إن تيم كيسو إن أما تيم كحيران أما تيم gacan ka siiyay inuu yimaado ololihii iyo kala qaybaha waa team Suniya Waabayo waa doorasho qof ciida oo ka hana qaada Puntland ilaahay kuma samadiiday dawladnimada Puntland oo hagaagta waana lagu tiriyaa waliba si socoshada maaragtay qaabkii xilka lahaayo hore oo aynu wuxuu maamuli jirnay inaad ku salugsannahay oo cudurkayna ku ahaana inay waliba qayb ka yihiin waa loo tiriyaa marka waa la sheegaa tiimkaasi inuu jiro waana dhab waa jira kooxdan aad haddana leedahay sun iyo waabay bay ku yihiin doorasho qof cod in Puntland ka dhacdo ma kooxda Aranjan baa uladan leedahay oo dadku afka ku dhuftaan horta waaba filaya inaan marar maqlay tiimamka Aranjan laf dhabarta waa iyagu diidan oo yiraahda koox Aranjan la yiraahdo ma jiro anu meesha ku baxday baa taagnaan xilligay baxaysa baan taagnaan Aranjan maxay qabtaan maxaa loo leeyahay hadaba joogtay nin baa bixi janay raxma Allah siiye hadda xijaabtay oo marka rag uu la kaftamayay wuxuu yiri eray wuxuu isticmaalay kaliya buluq aran dofar marka de rag ilmaadeero iska wada kaftamaya marka waxa la waraadeero dofarka wax noogu bedel markaas yiri Aranjan halkaas eray ka soo baxay kaftameen iska ahayd lisma lahayn erga saasi u weynaanaya adu finally waa weynaaday adu group gaas u baa iyo u malayn raalkiina shabad bay ku noqotay sidaas ku baxay xilligu waa horaantii 9aadkii xilliga arintaas ay baxaysa
meesha ay ka baxaysaana waa garow bartamaheeda meel ah oo janiir raxma Allah siiyo ninkaas hadda nin xijaabti weeye marka ismana difaaci karo hadda waa inay ka maqayaan marka inaan iska deynaa la qaato laakiin waa xijaabti kooxdan marka uu la kaftamay oo uu ku lahaa ma kuwaan hadda loogu yeero iyaguna isu yaqaanaa waa noolyihiin hadda raggii uu la kaftamay marka waxa qayb ka yihiin tadawur badan baa ku soo dhacay oo ragga hadda sheegan oo xilliga aan ku jirin baa jiray oo kamid aha rag markaa kamid aha oo ka baxayna way jiraan oo aan garanayo anigu ragii markaa lagu tirnayay oo aan hadda kamid ahayna way jiraan marka intaba waa ay jiraan laakiin way muhiimaddu waxay tahay anigu ariga taariikhan baan uga sheekeeyay mooyaane rag inaan hadda shabad saaro oo aan label gareeyo ujeedkaygu ma ha yeeshee aad baa hadal haynta ereygaas uu u badan yahay ereygaasuna asal nuwaal buu ka soo jeedaa oo lagu maray laakiin hadda erey connotation kharibaad la leh iyo musuqmaasuq buu dib ka noqday laakiin waaga erey kaftan isaga baxay buu ah hadduusan waagaas kharibaad la jirin isagu jaanka waxaba ka daran ba doofaarka marka maxaa keenayay inuu mar kasta magacaas xun ku lahayo waa laga yaabaa inuu iska maagis inuu iska ahaayo in aad u kaftan badan buu ahaayo dadka la kaftamo oo iska maaragtay ilaahay uga meel bixiye laakiin marka dambana de wad arkaysa sida uu uga bedelayo selfis u garawsaday iyana ay u salugeen marka raggii maxamed cabdullaahi shortaayo Puntland waxaad ku celcelisay in nidaamkan qof iyo codka ah oo dadka uu u yahay dan oo xuquuqdii muwaadinku lahaa hoos loo daadejinayo qofkuna uu xuquuqdiisa dastuuriga ahayd uu samaynayo hadda waa ogtahay Puntland doorashadii 2024 January waqti baa ka dhiman laakiin madaxweynaha intiisa badneed waqti waa tagtay wadankana abaar baa ka jirta dhaqaale la'aan xoog leh baa reer Puntland ka cabanayaan ma kula tahay in madaxweyne Dani ay u harsan tahay waqti uu Puntland kaga hirgeliyo doorashada hadda saddex degmo oo hordhaca ahayd ay la qaban laayahay ma kula tahay Puntland in laga hirgelin karo waqtigaas yar harsan in doorashada madaxweynaha lagu galo qof iyo cod zakari aad baad u mahadsan tahay waa su'aal qiimo runtii qiimo badan horta isdoorashada shacabka reer Puntland in madaxdooda doortaan oo qof iyo cod ay isku doortaan waa daawo waxay daawo u tahay cudur soo dilooday Puntland runtii ragaadiyay rubac qarni kadib inaanu halkan taaganahay waa nasiib darro rubac qarni kadib in waxa la wadeelay inaan cidina lahayn waa masiibo rubac qarni kadib in fawdadu ay nidaam noo tahay dawlad xumadu iyo musuqmaasuquna ay inoo yihiin dawlad inoo yihiin وحوم ربع قرن كذب إن أنا ولي dependent كنا هاي دق دبدت ونصيب دروي ربع قرن كذب إن أنا مجرد أنا جري أن كذب إن شرع الرضو أي شرع نوته هاي ومصيبه معقول معه أود الدلك وها هيستأمر البقعة يوجشا ضد عن الحين ضد شغل كل حين إن يركوح ذا يركوحها يركو عن كل شيء كين إنه أكله بإسكمرور سمية شعبك واصل عن مركز دباتها جادة أودي ما هيستام دولة نمذ بوحنا واحد نقطة مركز طول يجا الله هيستو لو عبريو لو ديرتو يجا لو فليس غريب مركز عشورتي بالله قاعد يحمل له معلي ما أنت إن مناهجته العقلان معه ما أنت أبارها إن iyagu inay bariyaan bay noqonaysaa halka dawladdu ay waajib ku ahaan lahayd inay u gurmato ay leedahay mechanism dhab ah oo u gurman kara sababtoo nolosheedu miyiga ay ku dhisan tahay haddaanan miyiga iyaga siyaasad aanan ka lahayn abaaraha aanu kula tacaalno oo dadkayga aanu ku caawino oo xoolaha iyaga aanu ugu gurmanno oo aanu ku daaweysano dadka iyo xoolahaba waxaan maxay ka dhigan tahay dawladnimada noocaas oo kalenta waa nasiib darro weey in dadka waa in loo celiyaa awoodoodii waa in laga qaadaa awoodda dadkan aan lahayn ee haysta dadkan boobay ee awoodda haysta oo isu haysta annagaa naloo igmadayda ku haya haddii lagu igmaday haddee dadka ugu khidmee baa lagu yidhi adigu ku danaysa laguma oran fiirsa hadda annagaan maaragtay nalama hadli karo annagaa leh macquul ma aha إن هذه verbally نوالو يراه هذا فعليا نوابه ولقيت بواسو جدو فعليا بيبتاع وشغينيس قفك وحبا كوغرون كتو ساليو 10 كوديغا او كيراه هذا ورانغا هawshatna la siin alkoon la hadli karo marka dadka waxay u baahan tahay in awoodda la dadejiyo shacabka in loo celiyo codkooda iyagu inay ku ciqaabaan qofka intay mar ku khaldamaan oo ay doortaan dabadeedna sixi kari waaya ayna ku abaal mariyaan midka ma garanaysaa wuxuu hagaajiyo oo wuxuu saxa oo hogaamiye saxaha inay la soo baxaan marka adigu waxaad aaminsan tahay doorashada soo socota in lagu galo qof iyo cod
hadday taas ka dhalanayso ka waran in waqtigiias wax lagu daro oo extension yimaado halka haddii aan wax ku daro horta madaxweynuhu term buu leeyahay termka hadday dhaafto waxbaa naga khaldamaya lama khaldi karo taa madaxweynuhu termka uu leeyahay waa in uu ku dhammeeyaa hawsha tan haddii uu intaa kaga gaari waayana meesha ay taagan tahay waa inuu uga tagaa oo ama haddii doorashadii la galaa 8 January maalinta iyo saacad lagu dari maayo inuu ku darana ma aha sababtoo ah inta ay bi'inayso iyo inta ay hagaajinayso intay bi'inaysaa badan haddii la yiraahdo awoodda ha lagu dhiganaado ama laga laadlaado isagu hadda dadaalo waqti buu hadda lumiyay runtii oo waqtiga federaalka iyo xagga ku lumay waqtigaas dadka waa la tirakoobi karay population census waa la sameyn karay doorashooyinka degmooyinka waa la qaban karay doorashooyinka degmooyinka mar haddii la qabto la ogaado demographiga dadka reer Puntland dan 66 ama intii la doono oo baarlamaanka marka lagu daro ayaa dabada codka loo qaybinaya dabada iyaga soo dooranaya baarlamaanka madaxweynahana qof iyo cod bay ku dooran karaan arinta kaliya ee hadda hal one step baan u jirnaa hadda hal talaabadaasna waxay tahay degmooyinka hadda afar iyo maxaa la yiraahdaa 47 ah bes oo doorashadii laga qabto hadday iyaga ka dhacdo iyaguna waxay ku dhici kartaa kow mechanismskii oo dhan in loo dhamaystiro sida for example hadda wixii agab ahaa oo loo diyaariyo dadkii degmooyinkii oo xuduudahoodii oo la magaranaysaayay demarcation lagu sameeyo oo la calaamadiyo ilaahay kuma sibadiiday shacabka degmooyinka ka codeeya oo la ogaado resourcekii kaleento iyo qalabkii iyo agabkii oo dhan oo loo diyaariyo maxkamadihii dastuuriga oo xagga maxkamadda dastuuriga iyo maxkamadihii nidaamka sharciga ahaa iyo tababarkii booliska iyo tababarkii TBEC iyo waxyaaba ka dhiman oo dhan oo loo dhamaystiro khalaas hawsha la socodsiiyo wixii intaa ka dambeeya hawsha culus oo hal mar markayna dhaafto wixii ka dambeeya waa hasha ilaalis waxa weeye xubnaha baarlamaanka lagu soo dooran karaa madaxweynaha laftigiisa baa qof iyo cod lagu dooran karaa khalaas way dhamaystiranta waana laga gaari karaa waqtigu waa ciriir waqti dambe oo la beer daraya lama hayo waa laga gaari karaa ku darsasho hadday timaado oo ama Siciid ama qof kale oo ka dambeeya ama uu arinta fikirayana absolutely reer Puntland wax ka suuragelaya ma aha mudane waa mahadsan tahay soo kama dhigna markaad leedahay 8 January saacad lagu dari karo doorasho qof iyo codana waa lagu gali karaa doorashada madaxweynaha soo kama dhigna meeshii Soomaalidu ku oran jirtay inaad saamajiidiyo santrasho kala daa saddexda degmo oo tijaabada ah oo hadda la qabtay 2 sano waa ku dhowdahay inta laga shaqeynayo eelna ilaa hadda waa la fariisin laayay see madaxweynaha suurtagal uga noqotaa 47 degmo hal la dhiso oo laga shaqeeyo oo la dhameystiro ama madaxweynaha lagu galo haddana 8 January yaan la gaadhin soo kama fududa taas in odayaashani waxay noo soo xuli jiray 66 dib inoogu soo xulaan sidii fududeedoo la isla yaqaanay oo tiimanku iska soo bixi jireen reer Puntland waxooda isaga wataan Siciid waxaa lagu doortay 66kii iyo dhabar xoqoshadii baa lagu doortay hadduu isagu u holaday ama u hinqaday inuu bedelo taa which is good sababtoo waa la dhaliilsan dhaliil badan bay leedahay taasi hadduu u holaday hadee waa wiil karneed wey waa inuu sameeyaa iyadii haddii waqtigu uu ka dhaco isagoo aan sameyn sababtoo hadda waqti badan buu beerdaray laftiisa hadduu waqtigu ka dhacana tii un baa lagu noqonaya uu ku yimi bas isagu ma oran karo ilaa taasaan gaarsiinayaaye waqti hal igu daro maxaa lagu darayaa waxa 5 sano lagu eegmado 5 sano ku badnayd bulshada reer Puntland khalaadka dhacay intii hadda uu joogay baa iyaga laftooda ciidan ka badan waxa lagu ilaawi kari lahaa haddii uu mar awoodda dadka uu soo celiyo lacagtii baa faraha ka baxday amnigii baa xumaaday inkastoo dib aad wax badan la qabtay oo gaalkacyo iyo boosaasaba aad hadda loo xaliyay ma garanaysay xuduudahaygii baa la soo jabsaday hadda lagu soo durkay oo for example hadda dhinaca waqooyiga oo kale inta xaaladdu sida ay tahay duruufo dhaqaale oo aad u ba'an baa jiro oo dadkii maanta waa dhul yaal waxaan noogu wacan lacag badan oo naga baxday oo dhinacii doorashada naga aaday oo runtii si khaldan nooga baxday waxyaabo badan oo noocaas oo kale marka khalaad badan buu leeyahay maanta legacy-giisa waxa Siciid lagu ma garanaysay u magdhabi kara isagana soo celin kara karaamadiisa iyo madaxnimo iyo shakhsi arintaas doorashooyinkaas uu hirgeliyo doorashooyinkaasna cadow aan isaga iyo tiimka ku xeeran ahayn maanta male shacabka reer Puntland ururada siyaasadda inta buu ogoliyay inta kaliya laga helo iyaga ku darsashadaas iyo ma la sameyn karo wala sameyn karo of course waqti bay beerdarayeen run xilli ugu bilaabay xilli fiican buu ahaa aad baa loogu riyaaqay waa lala dhacay
إن وماركتي إنك دعدي بدن باللجا مركي هره لجا في شيء إنك استو مركي دم الله أركي إن واحد بدن أي خلديهن أو عيبه مدح تيبه وإسعسلي يو هذا الذي نوع عسى كلا الصوب حي إن أي ماركتي عيب بدن أو ما قرنا يساي محتاج أي لا ضحي إن أي موجودين مركا مدن شرطاي marka laga hadlayo doorashada qof iyo cod ee Puntland madaxweynuhu marar kala duwan wuxuu la tashi ugu yeeray ururada siyaasadda iyo ururada bulshada rayidka ah adiguna oday urur xubin ka abaatay mana ka arag sawirada dadka madaxweynuhu uu la tashiyada ugu yeero madaxtooyadan adiga ku casumin ma adaan tagin oo ka qayb galin balse wuxuu jiraan horta xaqiiqatan aniga Saciid xarig joosi gaar ah oo naga dhaxaya ma jiro إن وحوي ورد سياسة دنا وبكتر سنة هيو هدي ماشي اللي تجينا واللي مثالية إن أقوياء كان يو مجرد سياسيين تودن كان هدي واكم إذا هيو يضلفت كذا طبعا واللي مثالية إن أرنت ربطة هي سوى حي تهاي إن أنا قلت له إنك أنسيو دولة أنسيو ياركتيها أنك أمين سنة هي إسكو دورشة بنتلان يقف يعضها ويسكعضها هي واضح إن مهم ما هني مدحونا سيلفي إن أنا وذا قال له أو شرطايا مدحوني لكل ما عبين بولسوا عشية يو مجرد ساي مهمة بدن إيماله أنا مهمة وحائله سعيدنا إنه هري وصعده لجسنا وكتاجو إن بهاشنا ودياري أو رجع وديارنا يو أما وزي صلاح يو بانكم ده إن هذا حديث سعيد وحخلده أنا سعيد لصورن إن لا ياركو أنا قبضني معه هذه وحسحنا هذا سأسوب يقول مثلاً يقول نفسيه مركا لكل كاس بدن هدر أركتيه يقولون واجران طبعاً أما سيدونا بهو جران أما النقطة إن مركا أنو عن عضو دوبو عن هذا ورد مجاعيري هالكاس كالة لنا يا سيداس يل بنتلان ياديك بوا ويدين دني أما ميديا هبان مرسيو سيدا هدر أنو مرسينا يو كلامته مركا أنو جوشي سوا جوشي ده قول دردي سونا هاد وحاسة كوجار كأمويانه شعب كربون تلانه هجان وياهي قول درد كسو جارته هجان كيس خلدن أي أنا قول درية مركا إن invitation كهوالي فايقري لكن إن وحنا هي lecture حلية أبدا صالة حلية ولي مدحوينها على كل مو وفيدت كهرانا تمشغول بان هاي lectures إن ومدرب ربون تلان بان ولي بجيلش صوص عدا بان مقرر ساي بان lectures وقلا وان تبابرا إن حلية ضمنا أنا بدلنا كما قيل لك رأيه بان وحنا ليه lectures مركا مهمة وين أو جارة أنا هذا مدحوين يصور فريسنا وقت نعسى عن كل مننا وهو بان هذا أنا وارك أركتيه يوم مرة بوا جارا مركا عدول بوتك تو نعسى حن وشقيني سنة وإمي ثشاي أركتي سحب وجود بيسا مركا هنا سوي مو يعني بوش وين وهذا رجلا مجر مدن شرطاي ومع سنتاي ورئيسي بين برتن كجرنا نظام كان هذا أنك الله إنه وقف يعود waxaa tiir dhexaad u ahaa ururada siyaasadda ee Puntland dadka reer Puntland waxay leeyihiin hadda ururadii siyaasaddu haddii barnaamijku socon waayo eedda ugu weyn iyaga qaadaya sababtoo ah Puntland maalin kasta dhacdooyin muhiim ah ka dhaca ardayda hadda u jeeday u dambeysay oo $55 la saaray ururadii siyaasaddu waxa la leeyahay nidaamkii kama hadlaan kuma jiraan doorashada ayl oo in golihii la fariisiyo ilaa hadda aysan dhicin ma leh golihii hal fariisiyo ha is doortaan waxa la leeyahay ururadii waxay iska noqdeen wax warqad isaga qoran oo ashxaas ma aragtay iska sheegeen oo la hilmaamay eedda noocaas soo idima qabato سكر أدبدو ما صنطاي وسؤال غيم وي إن هرتا إن وحن حسوسنا يا شعب كربونتلان يو صحافة دابا ورد وعردين هذا الأساسي إن وحوي ولي كمان قد بنت لابد عردين ماذا ورن ورد إني مقارنة سايي كهدلان أو سيهوفن وهاجسن دولة بريشر لو صار بريشر جروبس كأنه قريب كيهين كوها عدادسك حكومة صارين وحلا صحور نعسى حلو قربيه ومهم ويتهاي لكن دور كودا أو يعني عيار إن بدن وحن أو آنين يا أنو تيرين يا إن عردينهن إن إسليهن مرة كاركو ورباهجة وفراي شايل أو ده فرق بربرويه أما هدي الله اسمه قبضه الله يدين تريا إنه يروحوا أنت فرح كبحد أنت إذا كان عضو سو كنت يروحوا كجبته بالغ يابا لكن رناهانتي يجو كتحدر يتالف تيجا وافتيمين كران إنه كهرلان ويابا سيدا جار كأوتابانية بولشة غير بونتلان أو
runtii xanuunada taabanaya inay address gareeyaan oo ay kala hadlaan oo dawladda cadaadis ay ku saaraan waxa ka mid ah for example hadda arrimaha abaaraha oo kale inay ka hadlaan oo yiraahdaan dawladdu lacag ha u qondayso waxa ka mid ah arrinta hadda waxbarashada oo kale bugaagtan runtii anigu waxaan wax ku soo bartay dal bugaagta la ii qabo qalinka anigu iyo buugga wax ku qoray kaliyan iibsanay buugta kale iyo manhajka macallinka kulli waa la ii qabay iskuul lacag kama ana soo bixin maantana in ardayga iyadoo waalidkii lacagta ka bixinayaan la yiraahdo $55 buugta kala baxo oo khasaba ardayga iyadoo waalidkii lacagta ka bixinayaan la yiraahdo $55 buugta exactly maanta aniga dalka lib iyo abaal baan u hayaa oo waxaan ogahay dalkaygu inuu wax taray wax baray laakiin wiilka iyo gabadha Soomaaliyeed ee maanta jooga ee reerka fakhriga ka dhashay saboolka ah ee dalkan uusan maanta waxba u sheegan ee manhajkii laga iibinayo ee macallinkii uu kira yahay ee iskuulkii uu kira yahay oo laga gadayo oo lacag ay tahay inay bixiyaan waliba qoysku iyagoo aan karin xanuunka maalin walba goob joog waa in lacagta lagu soo ceyrinayo xaasha lilaahi ardaygaasi de lama garan karo mustaqbalka markuu soo noqdo markuu soo baxo inuu isagu laftigiisu dal uu dareemayo inuu leeyahay dal uu hiiliyo maanta Puntland waxay inay taa ka gudubto lacagta hadda bugaagtan runtii culays bay ku tahay maanta dawladda Puntland waxay ahayd ugu yaraan haddii ayan waxbarashadii free uga dhigin bal inay tiraahdo war manhajka lacagtiisa anaga ka qaadanayo lacagta anaga ka bixinayna sababtoo ah ma badna lacagta manhajkaasi uu ku bixi karo dawladda Puntland iyo qarannimada Soomaaliyeed guud ahaan iyo wadaniyada mid heer national level iyo heer Puntlandba waxay u noqon lahayd wax dhan madaxweynuhu hadda waxa igu maqaalaa maalweyd wasaaraddu tay wuxuu yiri bal hal laqi arinta iyada shirna waa kala hayeen bal uu yiri khamiistii oo ay ka shirayeen waa rajaynaya inay iyo xilli ka dambeeyay ma goreed kulli shir maartay inay kala hayeen isagii gulisa wasiiradu waa rajaynaya inay soo saaraan oo Ilaahay waafajiyo inay yiraahdaan annaga qaadanay oo shacabka ka dulqaadnay culayskaas aad baan rajaynayaa in shacabka waliba xilliga kan abaaraha iyo duruufaha adag ay jiraan inay ugu yaraan la qaybsadaan inta relief ay uga dhigaan maartay baan rajaynaya insha Allah ta'ala maadaama mudane shortaaye ay aad macallin tahay oo dhinaca aad lecturer ka tahay oo iskuul aad garow ku leedahay Puntland waxay isweydiinayaan horta iskuulada iyo macallimiinta xaq ma loogu lahaa waalidkii ardaydu xaq ma ugu lahaayeen war annagu si Ilaahay og yahay hadda lacagta iskuulada ku bixino manhaj shirkado gaar ah soo daabaceen in culaysna lagu saaro oo khasab ardayda looga dhigo arinta dawma loogu lahaa iskuulada in la yiraahdo war ardaydii dawlad maadaama ay wax noo barin war ardaydii wax noo baro oo hadda manhajka hadii magaalada la dhigayo hadii iskuulada la dhigayo yaan dadkan ijbaari looga dhigin buugaag inay gataan arintaas soo dood qabata ma aha iskuulada mar walba xaq bay u leeyihiin inay xuquuqdooda doonaan oo xuquuqda ubadkooda inay doonaan oo dawladda kala hadlaan oo ururada siyaasadda pressure ku saaraan oo mudiirada iyo iskuulada iyo gaar ahaan wasaaradda waxbarashada pressure inay ku saaraan oo wixii ay xaq u lahaayeen inay helaan qaar waa cashuur bixiyaal qaar badan oo iyaga ka mid ah oo way shaqeeyaan oo waa shaqaale cashuurtii shaqaalaha laga goostaa qaar waa ganacsato cashuurtii ganacsiga laga goostaa in wax lagu soo celiyaa waa muhiim dawladdu waa inaanay ahaan dawlad dadka dhacay soo qaaday haddii waxba soo celin waxay noqonaysaa inaanay wax badan ayaan qaban hadda waxa ugu badan oo la yiraahdo waa amniga dawladeeda waxa ugu badan waa amniguna hadda intiisa badan waxa weeye waaba dhaqaalaha budgetkii ummadda oo dhan in la yiraahdo amniga lagu qaadan inta kale meel kale ka dusta oo mudnaantu ay kala hayd waxbarashada iyo caafimaadku ayaa ciidan ka badan wax kasta oo kale amniga marka laga yimaado mudnaanta waxa lahaan lahaa labada sector oo kale tusaalahan in la saaro marka laga yimaado dhismaha dawladnimada ee qalfoofta dawladnimada in la hayo oo lagu hayo dhaqaalaha iyo cashuurta shacabka wixii kala soo haray waxa weeye waa sideedaba saddexda sector weey laba sector waa dayacay dawladdu caafimaadda wax kuma bixiso waxbarashada wax kuma bixiso oo shacabkeedii ma garab taagna abaaraha iyo hadda waxa dhacayana waad markaysaa oo hadda ma garanaysaa madaxweynuhu maalweyd farmaraan booqanaya dadkii dhibaatadu ay gaartay waliba maartay su'aalaha uu markaa weydiinayo ay aad ula yaabanaayeen sida arintii Faransiiska ka dhacday oo dadkan hadday rooti waayeen meekay iska cunantay sheekadii ahayd oo kale war xoolihii ma waxay ma daaqtageen xoolaha ma jira xoolihii waa baabay ama hadii la doono abaar iyo faqri meel cidla isaga fadhiyo oo dhibaatada ay saameysay marka waa rajaynaya kulli madaxweynaha laftigiisu intaas fuliixadii ma mooge in la gaarsiiyay sida hadallada loo maartay ugu yaraan maalintaana waxay ahayd
in xogaa ay la socdaan oo dadkii uu wuxun gacanta u taago haddii uu ka soo laabtayna ugu yaraan oo taa hore uusan samayna hadduu ka soo laabto waxay wax ka raadkii uu soo maray inuu dabadeedna wax ka dabageeyo oo ma garanaysa marka labadaa midna ma dhicin aad iyo aad baan taana uga xunnahay inaanu anagu adres garaynana haddee waa muhiim haddaanu siyaasiyiin iyo ma garanaysayay ururo siyaasadeed intaba aanu nahay arrinta waxbarashada ana waxaan leeyahay Puntland waxay u baahan tahay inay qaadato waajibka ka saaran muwaadiniinteeda gaar ahaan marka laga hadlayo waxbarashada oo hadda taagan caafimaadka lagu xejiyo amniga ugu yaraan waxbaanu kala dhaqaajinaa intaas uma maaragtay muhiimadda ugu weyn ay tahay waad mahadsan tahay mudane Puntland maalin dhaweyd waxay ku aadanayd sanad guuradii 24aad ee asaaskii dawladda Puntland waad ogtahay markii ugu horeysay waxaa toos u soo baxay oo banaanka lala soo istaagay oo aan awal dhici jirin arrin la xiriirta taraha waa maalmahan badatay maxay uga dhigan tahay reer Puntland 24 sano kadib in koox gaar ah oo iyaga kamid ah ama deegaano gaar ah ama dad gaar ah ay leeyihiin waa taraha iyagii 2024 maxay nooga dhigan tahay reer Puntland ahaan waa su'aal muhiim horta taruhu wax dastuuriya maaha wax reer Puntland runtii bilayana maaha waxaan is leeyahay waa wax Puntland la wada leeyahay cagsigeeda ah marka tara laga hadlo marka xasha lillahi taraha meesha laga waxa horta tara la yiraahdo hadalhayntiisa hal iska daayo taas maaragtay wax reer Puntland qabta maaha wax Puntland hadeer dan u ana maaha reer Puntland waa wada geeyaan booskaas wiilasheeda iyo gabdhaheedu ilaahay kuma soo diidee Puntland la wada leeyahay baana ka caafimaad badan Puntland tare loo hadal hayo oo ma garanaysaa taraha la sheegay waa ila tahay in laga xishoodo inay tahay cidii la dooranayo anu doorka hore waa sharaxna tare kuma aan sharaxnayn cid aan tare hadeer ugu jireen ma jiro hadeer ta laftigeeda cid tare ugu ma jiro waana sharaxna hadii Allah wax jireen adoo sharaxna ma cad weey oo tuxaway oo in kula midla weey oo reer qardo kaliya codad ku badan weey waa laga yaabaa wuxuu inuu iska yahay wax dadban saale oo la iskala qabsaday laakiin hadalhayntiisa iyo in la public la yimaado oo la yiraahdo tarahaasa jira taraha hadda waxa la tirtirayo doorashada qof iyo cod la rabo in lagaga gudbaba weeye oo Puntland la wada leeyahay oo wiilka iyo gabadha wax tari kara lagu dooranayo hoggaankeedana runtii u qalma weeye haddii se taruhu kaba soo qaad hadeer tarahaas uu sida u jiray hadda kulay waa huba Puntland la dhaliilayo oo la durayo iyo xukuumadaha la dhaliilayo xukuumada tara ku yimaada ahayaan taruhu inuusan marka caaqib lahayn halkaas ay ka muuqata marka waa qabaan uu tarahaas iyo waxa la leeyahay hadeer aanay waxba tarayn marka in la iska daayo taraha inta laga gudbo hadalhayntiisa iyo ku cadayashadiisa in loo gudbo Puntland la wada leeyahay mar walba in la hadal hayo ma garanaysay Puntland la wada leeyahay oo loo kala sokayn Puntland qof waliba uu isu taagi karo xukunkeeda oo uu ma garanaysaa qofkii wax isbidaya amaba looba doortaba qof aan isagu isu soo taagine la og yahay wax badan la bidayo in ma garanaysaa la sameeyo laakiin xasha lillahi hadalhaynta bariyaha kan oo sidaa socotay anigu shakhsiyan waa ka cudur daaranayaa reer Puntland ay dhagahooda ku dhacday kalsoon darada ay gelinaysana aad baan uga cudur daaranayaa waliba hadda kelimadaha maartay shakhsiyaad hadda xagga kan nugaasha oo kale loo tirinayo ay ka yimina waa huba inay anigana igu meelan in badan oo reer nugaaleedana ay ku meelan hadallada noocaas oo kale laakiin hadii shakhsi reer nugaaleeda la dooranayo iyo mid kale شعب Puntland hawsha iyaga iska leh waan oranayaa aniga hal ay doortay laakiin hadii doorataan anu taraa cid ku meelan reer Puntland ku meelan taraa aan qaadanayna waa taraa Puntland ay leedahay taro ardaa gaar uu leeyahay ma waa maasanta mudane Puntland 24 sano kadib muuqaalka u jeediyay way leedahay waxbarashadii waa laga qeylinayaa caafimaadka dawladdu waxba dadka kuma celisay waa wada private waliba wasaaradda caafimaadka maalin dhaweyd waxa laga qaatay 300 oo kartoon sida iyadoo ay sheegtay oo wasiirku warbaahinta iyo baarlamaanka hor karay ma kula tahay in la joogo rubuc qarni kadib xilligii isbedel mug ballaaran Puntland lagu sameyn lahaa banaankana ay imaan lahaayeen hogaamiyaal qarsoon oo nidaamka maamul ee Puntland isbedel meesha u sarreeyay ilaa meesha u hooseysa uu ka hana qaadi lahaa hadiiba mar madaxweynihii laga hadlayo maanta 24 sano kadib
ma qabiil buu ku soo baxay tar ku soo baxay bureaucracy-ga iyo shaqaalaha dawladda maxaa ka filaysaa oo ah udub dhaxaadka iyo tiirarka ay dawladnimadu ku taagan tahay marka isbedelka noocaas oo reer Puntland oo dhalinyaradu u hamoon qabaan sidee ugu haran qaadi karaa Puntland aad baad u mahadsantahay waa su'aal qiimo weeye runtii xaqiiqatan dhabanka Puntland maanta kareema marsana 4 sano kadib marka la eego meesha ay taagan tahay annagu inaan isku dheerarino cid naga hooseysa ma aha waa inaan isku dheerarinaa kuwa waxna dheer Puntland maanta kuma sii socon karto sidii hore ugu socotay Puntland dawladda ma u baahan tahay dawlad afka ma ahaan karno ana just ereyga dawlad la yiraahdo dawlad kama ahaan karno dawlad waa inaan u ahaana ficliyan dawlad waa inaan muuqaal ahaan waxaad arkaysaa dawladnimadu waa nidaam nidaamka cidda u horeysa oo jibisana waa cidda in dawladda u tirino baabuurtaada dawladdu ay leedahay targa male hadday ku jiraan caawa wax ku jiray ma taqaan haddaad aragto baqdinta qofka reer Puntland amniga uu qabi karo mararka qaarkood waxaad ka dareemaysaa waa cidda loo tirinayo dawladdu inay u maaragtay amniga uu maaragtay ma durayo booliska ma aha ma ka hadlayo ciidanka iyaga kale ee magaranaysa waxaan ka hadlayaa mararka qaarkood ciidan aadan ba islahayn meel ay ka socdaan iyo cid ay u socdaan oo la leeyahay ama wasiir bay waardiyayaan ama hatta qof iska ganacsada oo caadi bay waardiyayaan oo wiilal qabiilkiisa oo maaragtay mararka qaarkood waxaad leeyahay askariga tuutaysani إن تلو كانوا مية كي أدو بحنا أدو أد بستايو أدو أد مشاركة بحنيسيو أديو كودي مني مية مسوا مد وبصعرين أدو كود الماء كودي باتيو تاس معناها ضايلة بس ذكر بنتنا مسويدين تسؤال عنه عاصو كلام ويهين كذا مركا معقول معها إن فوضى الدولة دم إيران نقطة معقول معها إن مسوق وأمانة إنه يهي معقول معها إن lagu aamino hantida umadu ay leedahay kuwii dhacay macquul ma aha in hantida umadu wada leedahay in hantida agoonta ay noqoto macquul ma aha rubac qarni kadib in Puntland dawladnimadooda dawlad la'aan ay ahaato macquul ma aha kuma socon karno sida ma si xamili karto haddii ay waxayna ka dibmaanaa haddee geeljirow baa la yidhi arijirow waa ka hoos Soomaali inteeda kale role model baan u ahayn ayda tahay inaan u ahaano xaqiiqatan waxa wax badan baa anagana naga khariban nagana sii kharimaysa haday ku socdaana runtii kharibi kara halka markay marayso inaan handbrake u jiidnaa wadadan toobiyaha ay khaldan aan ku socono wadada rafka aan ku socono waan ka leexana oo wadada toobiyaha ay dawladnimada ee saxnaanta ah wax walba ay leeyihiin ay furan yihiin oo dah furan yihiin oo sidii loogu talagalay u socdaan oo lagala xisaabtami karo cidda mas'uuliyadda loo dhiibay mas'uuliyadda ay u hayaan iyo hantida ummadda iyo transparency and accountability waa in dawladnimo ku fadhida oo daacadnimo ku fadhida oo dadka u ehelka ah dawladnimada in dawladnimada booskeedii meesheedii ay galaan oo dadka fawdadu inaanay dawlad noo noqon baa muhiimadu ay tahay rubac qarni kadibna xasha lillahi shacabka reer Puntland ma geeyaan ma qabato mana qaban karto sida hadda maanta ay waxay dhafarka aanu leenahay maanta inaanu lahaano ma aanay ahayn waa mahadsantii oo mahadsan yahay Maxamed Cabdullaahi Xuseen Shurtaaye oo siyaasiyiinta reer Puntland kamid ah oo maanta waraysi gaar ah aynu la yeelanay idinkuna waa mahadsantiin daawadayaal dhageystayaal أدي أدبار ما حصلت سكري أدي يبه هذا الدلجر أدي أدبان إذا كل بهيا إن حقيقة وحوي قيب وين باكتين وحا ورد السياسة ضو أي كجابيان عدة صحيح كرتا وتوسين كرتا أما دول دو كجابيسو وصحافة ده إن حقوق بعد ليدهن إن حد جذب إذن كلا ذكره ولا ذكوا أنا حد جذب بكره مهم نو نوتين ولا فرار بنوتين افتيمين تا يو وكفرين وكلا قاعدة ده شعبك أركتيها شعبك الدولة ده يو مجرد سايي إن وادين ما هدعلنا يا ربنا إنه ذكوا عبسترو أدبد ما تنتين موقتها معمل إن أكونك سيفين أكون أو كم إذا أكون ماذا سلام بانكي أديكن كرتول لعجها أديكو تشوجا جورجا جوبت هذا الشغلة إيميل كستبع وحنا كل دكان كرتا أديكو مرة يهب كم فضود فضلا جراح حديك سداد اللح حديك أكون كعجب بانكيجا حديك لعجته أفرجيس سيفين أكون وكونت دجالا ومعمل كوكيت سنكرول لعجيه سيفضود وحنا كلب حكرتا أديكو تجا حرمها بانكيجا وكليا كوكيت سول لعجها كونت دجال بانكيجا سلام